Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada mar kale iyo YouTube channelka Bara Aqoonta. Waa casharkii labaad ee programka QuickBooks. Casharkan waxaynu kusoo qaadan doonaa sida campaign cusub loo abuuro. Casharkii ku horeeyay waxaynu kusoo aragnay sida programka computerka loogu duubo. Marka aynu guda galno casharka saasaynu soo keenno halka inoo yaala saddex qaybood buu ka kooban yahay. screen shaashadani ka wari waxa la create new company oo marka company hore aan u jirin oo doonayso in ay bilowdo cusub. Open or restore an existing company kana waa company hore ku jiray marka soo keenayso kana waxa weey marka mid sample sameynayso. Create new company gaasaynu soo gujinayna waxay noo soo baxaysaa shaashadan halka start sada ku qoran tahay waa marka doonayso inaad si degdeg ah oo information badan aan baahnayn ee loo abuurto company-ga. Ka maanta ma doonayno waxaan doonaynaa detailed aynu information detailed gelino oo faahfaahsan. Halka ay ku qoran tahay other options bin soo furan daaqadaya waxaan ka dooranaa advanced sida marka ay ku qoran tahay shaashadan ayay noo soo bixi doontaa. Easy steps interview qaybta la yiraahdo ayay noo bixin doontaa markaynu su'aalaha oo dhan ka wada jawaabno. Markaas aynu hore soo sheegnay company waxaan ku xalin doonaa marka ugu horeysa hadii la yiraahdo shirkad dhisme inagoo shirkadaha kale marka service ka bixiyana sida dhaqaatiirta jaamacadaha iskuulada waxa inagoo intii ka gaarnaa hadii la ku xalin doonaa. Marka ka ugu horeeya waxaan ka dhignaa shirkad dhisme inoo soo qabo shirkadda la Double Construction ayay tusaale ku soo qaadanaa company inta markaan sameeyno halka ay ku qoran tahay legal name ayaynu isla intaan sameynay kusoo koobiyeenna magacaasina kusoo koobiyeenna waxa xusid mudan runtii in meelaha qaar ay optional tahay meelna ay compulsory tahay la buuxiyo. Halka ay ku qoran tahay asterisk calaamadda casaanka waa waajib inaad buuxiso, meelaha kalena waa optional oo dhaafi kartaa. Halka street ka ay ku qoran tahay halka marka tax ID-ga oo iska diinayna street ka adresskaas waxa weey waa halka joogto kolba shirkadu marka ay ku leedahay xafiiska. Marka aan tusaalahaan waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan iska soo qaadanayaa marka waxaan leeyahay Hargeysa street oo kala iska oranaya tusaalahaan halka city waxaan leeyahay Hargeysa qof walba marka meesha joogo isaga waa inuu ku qortaa marka halka shirkadiisu halka ka samaysan tahay. Waxaan leeyahay country halka ku qoran tahay Somaliland iyo Soomaaliya toona كل السيستم هذا اللي هذا واحد لنا مركا هذا البنك سوق هذا هالكا يقولون تاي فون كمركا هالكا واحد سيجي لسنا مركا توتو هذا كسيجي لسه سو رنتي يقف كل مركيسة كشرية إنه تصار إنه سوق هذا الله مركز المشاني الإيميل كا واحد كسوق هذا إيميل كا channel كا يمكن لنا على براء قوانتها gmail.com halka website-ka waxaan ka dhignaa marka website-ka kabiriga oo tusaalahaan kabiriga oo kale website-kiisa ka shaqeysaa. Marka inta kale waxa cusub runtii ilaalay iska optional tahay oo hadhow aad buuxin karto. Waxa leedahay waxay ka soo qaadanaa tusaalahaan double oo kale double.com oo kale waa iska tusaale waxa la marka next wariixaya halka waxa inoo soo baxday select your industry ku waxa doorataa industry ama qaybta ayaa halka ka dooranaysa. Marka inagu maadaama construction dhali halka waxaan ku raadinaynaa wax construction qosayna waxaan qaadanaa marka construction general contractor halka ay ku qoran tahay taas ay ka dooranaa marka ka doorano qaybta kale loo soo gudbin doonaa how is your company organized company-ga sidee loo leeyahay macnaheedu ma dad badan baa leh mise qof kaliya tahay. Marka waxa leeyahay inagu company-geenu waa sole proprietorship partnership aad samayn kartaa LLC talabaad samayn kartaa. Marka inagu taas ku diisanay tusaalahaan waxa leeyahay marka next year ku faanaa halkan waa muhiim waa fiscal year-ka oo xilliga shaqada bilaabayso my first year started shaqada waxaan bilaabayaa goorma shaqada bilaabayso. Marka halkan bilihii oo dhan baa ku jira inagu marka si loogu qurux badso January saan ku diiraa sanadka ugu horeysa waxa la next halkan waa optional waxa weey password ay ku weydiinayaan waa dhaafi kartaa
waana dhaafi kartaa waana samayn kartaa marka inagu halkaa aynu samayn waxaan leedahay double 1 2 3 baan ka dhiganaa double 1 2 3 horta ahaan mar labaad baynu ku celinaa double 1 2 3 marka waa muhiim inaad iska hubiso waxaad halkaa ku qorayso passwordkaasaan hadhow kaaga qaldan next way leedahay wuxuu ku create your Camry file marka Camry ayuu loo save garanayaa next way ku furada iyo bersugida waa muhiim marka halkani halka ku save garanaysa inaad ogaato inta badan dhiida ayaa lagu save garaystaa wixii muhiimka desktop wax wala iska dhigo waxa leeyahay marka idin waxaan ku save garaa maadaama iska tusaale tahay halka desktop ka dhigana laakiin adigu waxa kugu talinayaa ila desktop wax iska dhigid waxa la save kadib la cabaar iyo bersugida saas oo soo baxay oo shaqeynaya cabaar bersugida halka uu soo buuxsanayaa interview progresskii halka uu soo buuxsanay marka ilaa halka su'aalaha uu weydiinay marka dhamaystirno ayuu ilaa halka soo buuxsan doonaa hadii la ilaalo iyo bulshada oo shaqeynaya halkaas boqolkiiba boqol bay noqonaysaa marka boqolkiiba boqol bay noqonaysaa halkaasi runtii waxaa xusid mudan programkan la yidhaha QuickBooks waa program runtii aad iyo aad muhiimad badan u leh qofka sida ay tahay uga faa'iidaysta sida loo isticmaalo runtiina way fududahay qofku hadduu stebiska iyo tallaabooyinka raacayo qofku hadduu u fiirsado xaqiiqatan waxaan odhan karnaa waa program isticmaalkiisu aada u fudud yahay isla markaana faa'iidadiisu ay badan tahay marka waxay muhiim u tahay ardayda markaa dhiganaysa financialka ama ardayda jaacadaha ku jirta qaybta accountingka iyo cid kastoo ku shaqaysaaba inay programkan aada xil isaga saaraan oo bartaan waxay ka caawinaysaa runtii in qofku ay u noqoto fursad uu markaa shaqo ku heli karo isla markaana isticmaalkiisu aada u fudiyay marka uu inoo dhameeyey waxaa la next halka ay ku qorantay waad ku dhufanaysaa wuxuu ku yidhi what do you sell maxaad ka ganacsanaysaa maxaad iibinaysaa weeyaan ma service only ba adeegkii aad qabataan ma product only ba waa labadii baad isku dartaa marka inagu maadaama shirkad aan service baynu program ku xalin doonaa waxaan leenahay constructionkeena waa service adeeg buu qabtaa next baynu leenahay wuxuu ku yidhi sales tagas miyaa la charge garayaa runtii somaliland imika joogo iyo soomaaliya oo kale imika waxba sales tagaskaas muhiim maaha waxaan leenahay halkay ku qoran tahay no oo isagu inoo dooray ayaynu ku dhufanaynaa some businesses refer to estimate as quotas, bids or proposals. miyaad samaysaa quotationka bidska xaysiisida iyo proposalska maad samaysaa yes baan leeyahay waan sameeyaa maadaama shirkad dhismahay waan sameeyaa do you want to use Google billing statement in QuickBooks macnihii billing statement cidaad aad ku leedahay adiibaha ku leedahay miyaad bill garaysaa waxaa leedahay yes iyada yes inoogu daa do you want to use Google progress invoice miyaad dadka wax kaga iibisaa haa waan leedahay dadka way sii deebilaa do you want to keep track for bills you owe macnihii biilasha dadka ku leedahay miyaad track garaysaa miyaad ka daba tagtaa haa waan leedahay iyadana do you want to track time in QuickBooks macnihi miyaad ku shaqaysaa shaqaalaha miyaad time wax ku siisaa miyaa waxaa leedahay waxba time kuma siiyo loobaa leedahay do you have employees shaqaale miyaad leedahay xagga dambe ka samayn doonaa runtii qaybta shaqaalaha waxay leedahay saasay ku dhaafay ayadana runtii qaybta shaqaalaha waxay leedahay saasay ku dhaafay ayadana next ku dhufana select need to start tracking your files goorta shaqada bilaabso waa muhiim halkani waxaan leedahay markaa waxaan ku daysanaa kowdii bishii koowaad 2019 ay ugu daa agaasay markaa sax soo saarayna adigii markaa ku khusaysaa kulwa timeka aad bilaabayso shaqada inaad ku base garayso taa next way leedahay halka wuxuu ugu soo diyaariyay accountskii markaa related ka lahaa company-geeda ayuu si sax ah ugu soo diyaariyay wixii ay doolarada iska saarana wixii ay doolarada ku diisana marka taasoo kale construction income-ka way ku diisanaysaa rental income-ka alaab hadaad kirayso kale waa muhiim loogu daa iyada inoo saar sax blue printing and reproduction taasoo kale iyada uga baahdeen waxaynaan u baahnayn markaa halkaas sax ka qaadana marka runtii waxaan odhan karnaa
intii muhiimka ahayd ee u baahnaysa inaad hay saxaasay ku wada daynayna waxba ka qaadi weyno taybay ka qaadanaysaa way iska dhaafaynaa next baa lay markaa okay markaa congratulation okay inoo dhameeyey saasaynu markaa ku bilaabana shaqada kamerigiisaasu markaa inoogu abuuran yahay haddii aad u baahato markaa inaad go to sad abuu ku horay inaad markaa samayso inaad kamerigiisii guda gasho halkaasaad ku dhufanaysaa markaa casharkana labaad halkaas ku joojinayna haddii aan la idhahdo la soco casharka saddexaad iyo inay shaqadii bilowda haddii aan la idhahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi